إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan ka nimid aniga gudoomiyaha iyo xildhibaanada iyo wasiirada isbitaal Madiina oo ku soo aragnay dad meyd ah iyo dad dhaawac ah. Haldana waxaan nimid meeshii shalay uu qarax ka dhacay. meeshan runtii waxaa ka muuqda inay tahay musiibo qaran. cid walba oo ku fikiri karta in waxaan lagu sameeyo dad shacab ah, rag iyo dumar iyo haween dhalinyaro odayaal waa cadowga ummadda Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa haddii aad ganacsato tahayna nolol kuma haysatid sidaan, haddaad arday tahayna iskuul ma aadi kartid, haddaad shaqaale dawladeed tahayna ma shaqayn kartid. macnaheedu waxay tahay waxaa lala dagaalamayaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. waa inaan waxaan meel uga soo wada jeesanaa, waa inaan wax walba oo kaloo jira intaan dhinac u dhiganno aan ka shaqaynaa haddii Ilaahay yiraahdo ummaddeena sidaan u badbaadi lahayn. guddiga maanta aan magacaabay oo howlaha musiibadan qaran la xiriira ka shaqaynaya waxaan ka codsanayaa in sida ugu dhaqsaha badan meydkii aan ku soo aragnay isbitaal Madiina loogu sameeyo aas qaran, loona duugo sida ugu dhaqsaha badan. dhammaan shaqaalaha dawladda waxaan ku amraynaa ama la farayaa inay gacan ka geystaan. sidoo kale gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna dadaalka sii laba jibaaraan. dadkii ku dhaawacmay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan bilaabi doonaa oo aan ka codsannay dawladaha aan saaxiibkana in dalka dibaddiisa lagu soo daaweeyo. nambarkii tiradii ugu horeysana berita aroorta hore ayaan qaadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.